taariikhdu waa aqoon aad u muhiima waana aqoon runtii ujeedkeedu ay tahay in lagu cibro qaato duruus laga barto noloshana lagu hagaajiyo inta dambe سادرد الله سبحانه وتعالى القرآن توحى ورد يعني أنت أوروبا ضمن قصص وحويا إنه الله سبحانه وتعالى نوكل عضية شتى وناسنا يقومون كهرب مرين أكو بلارين يقولون أن شتى وناسنا مرين كحون مرئي يسدوها العسمين يوحى مركا أي يعني نلشوا ذا يكون معطي سمركا الله وضع أي رو أورانو ونا عبر قاضنا شتى وناسنا أي أورعنا كان كلنا مركا أي رو فرانو سادرد waxa muhiima in yani aqoonta taariikhda ama cilmiga taariikhda aad loo dhaxgalo la baaro oo qowmka hore iyo sida ku horumareen haday noqotay sida ku fashilmeen iyo dhammaan wax kasto ku yani ku munaasiba in laga eego oo marka yani at-taariikh yuciidu nafsahu baa leeyahay saadrad waxa muhiima in dib loo baaro taariikhda oo marka indho aqoonaysan lagu eego oo marka la fasiro saadrad waxaynu maanta muuqaalkan isku la wadaagi doonaa ama aynu ku faaqidi doonaa bal inaynu wax ka ogaano ka Soomaali ahaan dawladda la yar ee loo yaqaan Singapore ama Singapore Carabi ahaan loo yaqaan dawladdaas aynu bal isku dayi doonaa inaynu ogaano shan waxyaabood oo ka qayb qaatay in horumarka maanta ballaaran ee heerka maraya ay gaaraan sababta aan soo qaadanaya maanta muuqaalkan ama mawduuca aanu falaqayn doono oo laba xalqadood inoo noqon doona waxa weeyaan inaynu bal dawladihii hore ee dunida soo maray iyo yani kuwa maanta ugu fiican ee maanta ama dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan ama yani dunida maamulkeeda ugu fiican bal heerarka kala duwanaaye ay soo mareen iyo in wax laga ogaado oo dabcan si toos ah loo baaro dawladaha marka hadda soo kobcaya soo koraya ay si wanaagsan inta u baaraan ay ugu ogaadaan dhibaatooyinka ku jireen maxay ahaayeen sidee dhibaatooyinka u xaliyeen halka maanta ay taariikhiina sidee ay ku soo gaareen waa shay aad u muhiim ah oo tusaale ahaan inaad maanta aad wado cusub aad baarato waxa ka muhiimsan oo waqti inta ka qaadan lahayd oo time ka qaadan wax badan ka qaadan lahayd waxa ka muhiimsan inaad dadkii hore halkan mareen si fiican inta u daraasaysid kadibna aadna markaa jidka aad qaato soo dhawaada dhamaantiin daawasho wanaagsan السلام عليكم صاحبيال كسو دوادا بركولكين عبد الله منصوري هداد كمن هاين اصحابتا نوغو خيران كسو دو كانالكا او كمن نوغا اصحابتيسا هداد هورا نوغو خيرنانا سو دو مركله سان هوراي كسو شيغay maanta waxaan ka sheekaysan doonaa ama aan isla wadaagi doonaa muuqaalkan shan waxyaabood ama shan sababood oo keenay maanta inay yani Singapore ay noqoto mid kamida dawladaha ugu horumarsan caalamka Singapore oo naqaanay 50 sano ama 60 sano ka hor halka ay taagneyd iyo inaan laga rajaynayn xataa inay dawlad noqon doonto بلان معلومات يورو كوبان أن تكسيو سنغافورة ودولة دعدا يعني إيش هي دعدا إسلام مركانا ولنا جارهان دعدا يعني جزيرة ملايو ودولة كوبان لحدا جزيرة دود وجزيرة أوين أي مركا أي جارسي سنتهاي ما بحددو أي جارسي سنتهاي إلى 60 كيلومتر أسطورية أما سيالات كيلومتر من أصل قياسان ودولة رنتي له مد كمدة مدارات عنسان إسلام مركانا ولو يعني عيري بدن أدونك waxay soo kale leedahay mid kamid ah dekedaha ugu weyn ee dhaca marka koonfur bari qaaradda Aasiya dekedaas waxa soo mara 40% yani maraakiibta ama yani shaaxinada ama waxyaabaha ganacsiga ee marka maraya 40% kamid ah ayaa marka dawladda Singapore soo mara isla markaana iyadoo ay cashuurtaa dawladda Singapore waxa uu isticmaalku yimaaday 1946 uu yimaaday waxaana uu ka tagay 1949 kadib waxay noqotay dawlad gaar u taagan laakiin waxa ay la midowday oo marka ay ku beertay Malaysia 1963 ugu dambeyn Malaysia iyo wixii Singapore dhexmaray waan ogsoonahay inay Malaysia ay iska diido ay Singapore maadaama wax allaali wax taraysa aanay jirin dima doonayaan nagu soo biirto ugu dambeyn 2 sano kadib 1965 waxa ay noqday dawlad marka gaar ah oo marka gaar u taagan oo dib marka la soo noqday marka madaxbanaanidoodii ay noqday marka gaar bay u istaageen markii ay madaxbanaanidii la soo noqotay waxa maamul ka noqday ama ra'iisul wasaare ka noqday ninka loo yaqaano Lee Kuan Yew oo marka ah ninka maanta Singapore halkay taagan tahay soo gaarsiiyay ama aasaas u ahaa inay Singapore ka baxdo xaaladii ku jirtay markii hore oo xaalad aad u hooseysa ahayd isla markaana gaarsiiyay xaaladda maanta aynu marka arkayno aynu isla wadaagno shanta qodob ee runtii muhiimka ah ee ay ku horumartay Singapore sababta koowaad ee soo qaadana ee Singapore ay ku horumartay waxa weeyaan Singapore waxay ku dadaashay inay dhisto bini'aadan ama dadka inay dhisto ay ku dadaashay xagga akhlaaq ahaan iyo xagga dhisitaan ahaan dadka labadaaba waxay ku dadaashay inay marka horumar fiican ay ka samayso bini'aadan dhisan ayaa ummadna badbaadiyo oo dalna dhiso oo markaa waqtina ka faa'iideysta oo dhulna markaa ka faa'iideysta saadaradeed ba Malik bin Nabi waxa uu lahaa ummad kasta waxa ay leedahay saddex shay bay leedahay ama dawlad kasta saddex shay bay leedahay waxa leedahay dad bay leedahay waqtina way leedahay ciidna way leedahay marka waxa aasaas ah ama shayga asaaska waxa weeyaan dadka weeyaan hadii dad dhisan la helo waqtina way ka faa'iideysan doonaan isla markaana markaa dhulna way ka faa'iideysan doonaan saadaradeed waxa ay ku dadaaleen ninkaas markii uu saa u xilka u qabsaday inuu markaa dadka yani maanta Singapore ku nool inuu markaa ayaga dhiso waxyaabaha uu ka dhisay waxa kamid ah xagga akhlaaqda ayuu si weyn uga dhisay runtii oo ay kamid tahay markaa in yani ay noqdaan dad ixtiraam leh dad qiyam leh
dad markaa u adkaysan karaya dhibaatooyinka ay ku jireen inay ka baxaan cawaaqibta dawladdu saaraysa waxa ay qabanayaan inay ka guuraan oo mid kale u guuraan markaa dad u dul qaadan karaya waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah waagaas suuqiyadeedu waxay ahaayeen qaar dilku ku badan yahay qaar wax kasta lagu iibiyo cunto caafimaad la aan ka jirin yani aad la iskugu baabiyo ay ahayd laakiin waxyaabaha la yaabka lagu sameeyay waxa kamid ah wuxuu yiri hay'ad uu sameeyay hay'adaas wuxuu yiri waxay caawinaysaa ama taakula u fidinaysaa ama ay garab istaagaysaa يعني محل كسته أما ميل كسته أوفران أو مركا عنت إيبسة لكن عنت ده أنه قطع متهيله إسلام كان عارف مع القطع مرة هو يقول يعني واحد بديل كوس سمينية أما أنتاريريا قرضة وحاسون سميسة مرة هو أيدي رتشد لا يعني ضد في أو مركا القصة حاليا وحي حما يدل لكينيا مركا يعني واحد في عنو ونرسان أي سمية waxa soo tara dhisay inay markaa ay ku dadaalaan dadka reer Singapore cid kasto u imanaysa ama soo booqanaysa ama yani u soo hijroonaysa inay si fiican u soo dhaweeyaan oo karaameeyaan oo markaa ay si weyn u marti qaadaan waxa ku dadaalay in markaa ay ka qayb qaataan oo markaa ku booriyay ka qayb qaataan bandhigyada caalamiga oo markaa meel kasta wax ugu soo banay inay yani shakhsiyadooda ku muujiyaan isla markaana wadaniyadooda ku muujiyaan oo markaa ay yaru intimaa wadaniga ay sameeyaan oo markaa ay ku faanaan Singapore iyo halkay maraysa iyo waxay tahay ay aad u faanaan runtii jawaanib badan oo akhlaaqi ah iyo jawaanib badan oo ah yani inay dadkaas ay yani ku iirtaan oo isla markaana ay yani kalsooni ay ku qabaan isla markaana ay aad ugu faanaan wadankooda ayuu aad uga dhisay marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahayo wadan hadii la doonayo in la dhiso horta dadkan in laga dhaadhiciyo wadaniyadaas laga dhaadhiciyo kow in la aaminsiyo wadanka inuu isagu leeyahay in la aaminsiyo qofka kaliya inuu u dhigmo markaa dadka reer Singapore oo dhan ama dadka yani wadankaas oo dhan inuu u dhigmo shakhsiyadiisu qaabka noqoto inuu ummadooda ay leeyahay marka waa qodobka ugu horeeyay ee markaa ay ka dhaqaaqeen sababta labaad ee soo qaadanay ee ku horumartay Singapore waxa weeyaan waxa ay dhistay dhaqaalaheeda sida uu soo saaray macadka loo yaqaan macahad dawli litadwiir wal idaara 2019 taqriir uu soo saaray waxa uu leeyahay yani Singapore waa dawladaha ugu horumarka badan xagga dhaqaalaha ama horumar aad u dheereynaya sameynaya dhaqaale fiican markaa dunida yani ka sameynaya Singapore waxa يعني 60 sano ku dhawaad ka hor uu ahaa mushaharka qofka kaliya soo gala يعني $320 wax lagu qiyaasay meelahaas oo kale ilaa 50 sano ka hor hadda waxa uu marayaa yani in ka badan qofka inay soo dhashay $60,000 yani in ka badan inay soo dhashay qofka oo mushahar ahaan u qaadan karayo ay maanta maraysa waxana runtii ay ka tirsan tahay maanta Singapore sida aan naqaano mid kamid ah dawladaha ugu qanisan ee marka dunida ku yaala haday noqoto dadkeeda iyo haday noqoto dhismayaasha ka dhisan iyo haday noqoto sida dunida ay yani u maal gashatay oo marka warka qaarna yani wax laba qaab baa jira oo badanaa wax lagu maalgeliyo marna wax laga yaabaa in alaabta soo saarta ay dunida oo dhan gaadho marna adiga ayaa noqonaya centerka lagu kala iibsado dunida oo yani bacshirooyinka iyo businessku markaa ku kala dhex wareego iyagu waxyaabaha ugu waaweyn ee ka faa'iideen taasa kamid ah oo dekada iyo madaarka ay markaa ugu weeyeen marka waxa uu ku dadaalay in dhaqaalaha wadanka si weyn loo dhiso oo resource wadanka maadaama resource aan wadanka lahayn oo markaa waxyaabaha cajiibka ay kamid tahay markii uu madaxweyne noqday ninkaasi inuu markaa aad u ooyay oo yiri sideen ayaan maamul uga noqon karayaa dawlad aan yani resource ay leedahay aanay jirin xataa waxa la sheegaa in waxyaabihii lagu dhisay Singapore ama ciid xataa lagu dhisay in Malaysia laga soo qaadan jiray isagoo ooyaya ayuu markaa hadalka lahaa laakiin waxa ku dadaalay bal inuu u sameeyo dhaqaale wuxuu doona ha noqdo maadaama dhaqaale resource caadi aanu haysan ama natural resource aanu haysan inuu ka faa'iisto human resource ka faa'iisto isla markaana uu ka faa'iisto markaa dhulkan inta uu ku nool yahay inuu markaa isaga ka sameeyo markaa dhaqaale marka dawlad hadii ay doonayso inay horumarto waa in dhaqaale suran ay yeelato يعني dhaqaale isku filan waa in markaa ay yeelato sadeed baa markaa food security waxyaabaha muhiimka ay tahay in markaa dhaqaale markaa yani ummadaas ay hesho sababta saddexaad soo qaadana ee markaa ay ku horumartay Singapore waxa weeyaan waa siyaasad degan weeyaan markii uu soo noqday Lee Kuan Yew madaxweyne markuu soo noqday waxa uu ku dadaalay inuu Singapore u sameeyo siyaasad degan oo xasiloon oo xeerarkeedii leh oo markaa nidaamkeedii dastuurkeedii leh oo markaa yani halka u socoto iyo jihada u socoto iyo sida u fikiraysa mid kastaba yani ummadii laga dhaadhiciyay loona sheegay isla markaana isla wada ursoon yahay taladana uu markaa uu ballaariyo cid kasto markaa tala ka qaadan kariyaan oo taladiisa ka soo qaatay waxay noqotay markaa 4 sano kadib markuu xilka hayba in markaa ay ku soo noqoto xaaladeedu xaalad aad u degan waana waxyaabo ay keenayso wax kamid ah siyaasaddu hadii deganaato in cid ku maal gashanaysa ee wadankaaga imanaysa ee soo booqanaysa ee wax ka dhisanaysa ee markaa maalgashi ka sameynaysa inay markaa amni ay dareento hadii amni ay weydo cid allaale cid ku imanaysa habay aragtay meesha dagaal kaliya oo dhaca waxa uu keenaya intaas oo mashruuc oo meesha ka jiray inay ku baaba'aan dadkina bilaa shaqo ay noqdaan markaa laga kala yaaco laakiin dunidu waxay u baahan tahay hadii ay doonayso cid inay investment ku sameeyso ama maal geliso in meeshaas ay ka jirto siyaasad degan oo markaa sugan ay ka jirto marka waxyaabuhu ku dadaala wax kamid ah si dunida kale ula jaan qaado oo markaa xaaladiisa u dajiyo inuu markaa siyaasad aad u fiican oo wanaagsan oo dadkiisana ku dhaqo
isla markaana wadankiisa mid ku horumaraya ay noqoto jaarkiisana marka uu la ciyaaro marka wax loo yaqaan zero policy ama zero political loo yaqaan oo marka ah in yani wax cadow ah aan la samaysan intii dawladdu ay horumarayso marka meel fiican ay ka gaarayso marka siyaasadda in la dejiyo oo dawladda siyaasadeedu ay siyaasad fiican ay noqoto oo waxa ka qayb qaata dawladdaas inay horumarto oo marka meel sare ay gaadho sababta afraad soo qaadana ee Singapore ay ku horumartay waxa weeyaan waa xagga ganacsiga waxay ku dadaashay in ganacsi fiican la sameeyo maadaama wadanka aan natural resource lahayn waxa ay ku dadaaleen in ganacsi fiican la sameeyo oo sidee ganacsi loo sameeyo laba meelood ay ku dadaaleen meesha koowaad waxa weeyaan xagga dekada dekadoodu waxay noqotay mid kamid ah dekadaha ugu horumarsan qaaradda Asia iyo caalamka si guud ah waxay noqotay meel center u ah dhammaan in iskaga kala gooshaan businessyada yani marinka maraya madiiqo malaqa maraya iyo yani jasiiradaha ku dhow oo dhan mid yani aad yani u muhiim oo ku siinastaan oo shaqo ka qaataan oo ku kala wareejiyaan badeecadooda ay noqotay hadii taa ay noqotona de shaaxirad kasta iyo wax kasta oo imanaya cashuur baad ka qaadanaysaa marka faa'iido ayaa kugu jirta adiga marka dhaqaale aad u fara badan oo aad u weyn ay xagga ka sameeyeen meelaha kale dhaqaalaha fiican ka sameeyeen waxa kamid ah madaarka yani caasimadoodu ama madaarka loo yaqaan Shanghai waxa uu yahay madaarka ugu horumarsan yani marka caalamka si guud loo eego madaarada ugu horumarsan uu kamid yahay waxa uu qaabilaa halkii usbuuc waxa la sheegay inuu qaabilo 6800 oo marka duulimaad inuu qaabilo waxaan isla kala dooshaan 330 yani magaalo ayaa laga yaabaa halkii usbuucba in marka diyaaradaha ka baxaya ay tagaan oo marka ay kala dooshaan caalamka oo dhan marka ah marka waxaan arkaynaa baaxadda uu leeyahay marka madaarkoodu xataa tusaale qofka tusaale wadankeena kala ka tago oo doonayo marka inuu tusaale ahaan Malaysia qabto qasab waxa aynu Singapore sii maro oo Singapore ku dariya marka koobaad kadib marka diyaar ka sii qaadanaya kadib markaas uu Malaysia tiriya waxa waxay noqotay meel iyaduna santaray duulimaadadu sida Dubai oo kale iyo Sharqo oo kale ay markaas ugu kala gooshaan oo kala bedeshaan ay noqotay marka waxay aad ugu dadaaleen in marka systemkaas ay sameeyaan waxa tulay sameeyeen system aad u fiican oo marka in wadanka si fudud loo maalgashan karayo tusaale ahaan kale wadanku dhammaan waxyaabaha marka la iibinayo oo kale iyo ganacsadayaasha oo dhan in platform isku xidhan loo sameeyay halka marka wax lagu kala iibsanayo tusaale ahaan kale waxa kamid ah imka tusaalaha fudud haddaan idiin soo qaado kale ardayda Soomaaliyeed oo tusaalaha kale Pakistan wadanka joogo kala joogda mid haddii imka tusaalaha group ay samaystaan oo tusaalaha qof walba ganacsigiisa ku soo bandhigo waa yani qolkooda ma ku jirnaa qof kasta ganacsigiisa ayaa lagu ogaanaya kadib waxba lagu kala iibsanaya marka hub system noocaas oo kale oo fiican oo online ah ay sameeyeen oo marka ganacsigooda iyo si fiican ugu faafay wax badan marka dunida ay kula falgali karayaan oo marka u iman karayaan oo halka ka eegan karayaan iyaguna marka si fiican ay wax uga soo iibsan karayaan marka waxay sameeyeen system kasta oo marka ay ku horumar karayaan ganacsigooda oo dunida marka ay ku dhexgali karayaan saameynna ay marka ugu yeelan karayaan maxaad u malaynaysaa qof isagoo natural resource haystaba oo marka isagu soo yani loo baahayba isagoo waxa uu sameeyay baahi aan jirin buu intuu sameeyay ayuu marka ka faa'iisto marka dhaqaale ay ka sameeyeen sababta shaqada soo qaadana ee ugu dambeeya waxa weeyaan ugu muhiimsan runtii aan doonaya aad focus in loo saaro waa xagga aqoonta waxaan ku dadaalay inay horumar fiican ka sameeyaan xagga aqoonta dalka Singapore qof kasta oo ku nool waxa horta qasab aynu wax barto waxyaabaha muhiimka ah kamid ah inuu qofku wax barto waa qasab laga maarmaan weeyaan inuu qofku wax barto waxa kale oo muhiim ah in ardayda loo kala sooco sidii u kala heer sareeyaan salaha xagga garaadka oo kale fikirka oo kale sidii yani isku kooxa u yihiin ayaa loo kala saaraa oo wax markaa loo baraa waxa aad loo baraa wadaniyada waxa aad loo baraa aqoonta guud ee markaa iyaga ka baxsan waxa gaar loo baraa oo markaa aad loo baraa yani aqoonta iyaga dhexdooda ah taariikhdooda haday noqoto wadaniyadooda haday noqoto iyagu inay iska waramaan haday noqoto iyo dunida oo dhan si weyn oo fiican baa loo baraa waxyaaba aad loo baraa kamid ah yani farsamada iyo sida dunida ay ganacsi ula yeelan kar lahaayeen ama dunida saameyn ula yeelan kar lahaayeen qof kastana door fiican u yeelan lahaa ayaa runtii aad loo baraa waxyaabaha ku dadaalaan waxa kamid ah sidoo kale يعني إن ضدك معلمين تأهي أرددا وحولية إن حول جل صار أو مركز دقالة في عن الدرية وحش يعني إن يعني الشميرة أو هالميل إن مركز دقالة هو تك سنغافورة أو دل الدرية وحبرشوا الدرية يعني هو دقالة مركز شميرة ضوء قريبيو هالميل أو كميدا تصالح أنا هاتين بقول لك إنه يعني بقول كيف الله بعتن كميدا وحال الدرية دقالة هجود أي وطن كسنغافور يعني إن وحبرشوا الوهر مريو من السريسة اللي قاعد إسلام كان هذه حاجة معلمين تنقطة هذه حاجة منهج نقطة هذه نقطة حاجة أقربك يا هذه نقطة حاجة مكان فرصة الله سمية دليات oo marka ama cid wax baranaysan fursad loo sameeyo ay aad ugu dadaalaan marka waxa yani muhiimadoodu ay tahay ama waxyaabaha ugu sareeya ka mid tahay in ay soo saaraan arday aqoon ahaan iyo xirfad ahaan iyo marka yani aqoonta guudba inta badan runtii ka dhisan waxyaabaha aad ugu dadaalaan wax kamid ah maadaama dad fara badan kala duwan oo kala yani jinsiyada duwan ay marka ku nool yihiin marka Singapore ama dad meel badan ka soo kala jeejeeda isugu yimaadeen waxa laga dhigay luqadda koobaad ee marka wax lagu baran karayo in marka luqadda English noqoto marka luqadda wax lagu barto waa luqadda Englishka laakiin xagga ku hadalka waxa la cid walba waxa ay doonaysaa ku hadasho laakiin mar luqadda wax lagu baranaya waa luqadda Englishka marka waa wax aad runtii u muhiim ah waana runtii aan doonay inaan marka muuqaal gaar ah in ka sameeyno si fiican u falaqayno balse sidaabahe ama yani qaabkeebay u horumariyeen xagga waxbarashada ama sidee waxbarashada uga qayb qaadatay horumarka marka Singapore ay maanta ku tallaabsanayso
intaasna muuqaalka doonaya usoo gabagabeeyo waa runtii qodob aad u muhiima Singapore in wax badan laga ogaado Singapore hadday noqoto Japan hadday noqoto iyo dawladaha kale markaa horumarka fiican sameeyba in aad loo ogaado aad loo baaro oo markaa doodo fiican laga sameeyo oo in badan inta la darso la yiraahdo maxaa aynu ka waafaqi karnaa maxaa aynu ka qaadan karnaa aragtiya waa shay aad u muhiima waxaan idin ku soo gudbiyay oo runtii wali xog kooban oo aad aan u soo koobay ay tahay yani inaad barbardhig ku sameysaan oo eegtaan talo maxaa inaga dhiman oo markaa hadda aad markaa solution ama xal ama xataa fikir aad bulshadaada iyo yani wadankaaga ku horumari karto ay kaaga soo baxdo aad baan idin salaamaya dhammaantiinba xalqad kale oo wanaagsan baan idin rajaynaya